بسم الله الرحمن الرحيم casharkeena koobaad farta isku dardarka ah waxa uu ka bilaabanayaa xarafka a iyo b ayaan ku qaadan doonaa haddii rabbi idma xarafka a waxaan leenahay waa xaraf aad u fudud ugu fartan waxay ka bilaabataa mar walba sadarkan xaraf aan sadarkan hoose ee buluuga aan ka kicin meel ma tegi kara ama madaxli ha noqda ama wucli ha noqda ama lugli ha noqda guud ahaanba halkan bay ka wada kacayaan cagsi jihor waxay kasoo bilaabi jirtay kor laakiin tan waxay ka bilaabanaysaa hoos maadaama ay isku dardar tahay waxaan leenahay xarafka e oo kale waxaan ku bilaabayaa sidan saamaan leenahay bakor baan samaynayaa waa kusoo laabanaya kadibna wax yar buluug raacaya bakortaan ku aadinaya kadibna sidaa baan leenahay ka e bakorta samee ku laabo buluuga raac waa ka waa xaraf aad u fudud iyada hadday ku toostana wax dhan waa ku toosan yihiin bakorta waxay kaa saacidaysaa in aad ku aadid hadhow fartada haddii aadan bakor u samaynin waxaa imaan kara oo saa dhahda hadhow inaad u tagtaa imaan karaysa waana qaab darro usoo baxaysa marka waxaan leenahay sidan way ku aadistaa waa ku aadinay bas khalaas sida ay isku qabsadaan oo ka halkaas xarafka labaad wuxuu ku saabsan yahay xarafka b aad buu isna u fududahay waxaan ka bilaabay halkaas kadibna qaansar roobaad baan samaynayaa ama qaansada caadiga ah oo waxaan isu jirnaa dhanka bidix halkan baan kasoo marsinaya marka meeshan inay dalool yeelato waa qasab lagama maarmaan kadibna buluug wax yar toos waa ku celinaya marka soomaaliyan tartiib waa ka halka markaa taagan tahay ku wareeji bas noocan waa nooc kale waxaa jira sidan la leeyahay isagana qaab dhismeedku waa isaga mid halka markaa taagan tahay ayaa leenahay saas bas meeshii aan ku dari lahaa kuma daray nooc saddexaad baa jira oo aan la dhihi karna sidan kadibna saa leenahay tan iyo taadab waxay ka qabsanaysaa kor laakiin tan hoos bay ka qabsanaysaa xarafka aan isku dardarna gebi ahaanba وصراحة سكاحين